waxaa maanta oo kale la xusaa maalinta afka hooyo tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaana muuqata hoos u dhac ku yimid afka Soomaaliga walow hadda ay jiraan dadaalo lagu xoojinayo waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta afka Soomaaliga oo ku beegan 11 Febraayo balse maanta laga soo hormariyay munaasabada waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiye ku-xigeenka akademiga goboleedka afka Soomaaliga Maryan Cariif Qaasim maareeyaha tiyaatarka qaranka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda rugcada saxaafadeed bahda warbaahinta golaha abwaanada Soomaaliyeed fanaaniin iyo marti sharaf kale xafladan waxaa soo qaban qaabisay akademiga goboleedka af Soomaaliga oo kaashanaysa golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Soomaali been Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka akademiga goboleedka af Soomaaliga Maryan Cariif Qaasim kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa daafurtay munaasabada maalinta afka hooyo mudanayaal imarwooyin waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa inaan isxusuusino qiimaha uu noogu fadhiyo afkeena hooyo iyo xilka wadaniga ah oo waabaryaba naga saaran ilaalintiisa horumarintiisa tayeyntiisa iyo adeegsigiisa intaba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida xasiloonidu ku jirto aad dhageysateen ilaahay ajir iyo xasanaad idinka siiyo shirkuna waa furan gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan Xirso Dhuux Maxamed Wehliye oo munaasabada ka hadlay ayaa ugu horeen hambaliye ka diray maalinta afka Soomaaliga oo ah maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed abwaan Dhuux ayaa ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka inay sanadkan dhisto akademiyada oo ay dawladda ka qaadato kaalinteeda kaga aadan ka bacdi waxaan rabaa inaan hambaliyo iraahdo maalinta afka hooyo waxaan rabaa inaan noqdo maadaama la badan yahay qofka ugu horeeya ee beekhamiya waqtiga waxaan rabaa inaan hambaliyo iraahdo maalinta afka hooyo waxaan rabaa inaan hambaliyo iraahdo dhammaan cid kasta ee ka qayb qaadatay iyo qaybaha kala gedisan ee caalamka maanta looga dabaaldegayo waxaan rabaa inaan hambaliyo iraahdo martidiina quruxda badan ee ka soo qayb gashay oo saxaafadu kow ka tahay waxaan rabaa inaan hal qodob dul istaago oo ay ka dhawaajisay gudoomiye ku-xigeenka akademiyada xildhibaanad muxuu ahaa Maryan Cariif uga hari maayo ee waa taakiidaya arrintaas waxaan rabaa inaan codsi dheer iyo cod dheer ku iraahdo dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in la hirgeliyo dhismaha akademiga goboleedka af Soomaaliga oo dhagax dhigiisa ay ka soo wareegtay 5 sano ka badan waxaan xasuusanayaa haddii aanan khaldanayn in loo dhisayay laba geesood oo ah Soomaaliya iyo Djibouti waxaan xasuusanahay inay gacanta koowaad lagu heshiiyay in ay yeelato Soomaaliya Djiboutina ay dhamaystirto sidaas awgeed waxaan codsanaynaa oo gudoomiyaha aqalka sare arrinta culays ku saaraynaa oo fariin adag uga dhigaynaa in ay sanadkan dhisanto akademiyadu oo dawladda Soomaaliya kaalinta uga soo aadaneed arrintaas ay fuliso oo aysan garaash si ahaanin xarunta akademiyada waxaan intaa ku darayaa inaan idiraahdo soo dhawaada waxaan muxuu ahaa ku dadaalnay inaad xafladan noogu timaadaan maanta anigoo mar kale uu dhabarka ii saaran yahay abwaankeena saaxiibkeena Dr. Maxamed Daahir Afrax oo aan leeyahay iyo naadiga akhriska iyo qoraalka waxaan idin leeyahay soo dhawaada waa mahadsantihiin abwaan Cabduqaadir Cabdi Yuusuf Shube oo ah maareeyaha tiyaatarka qaranka ayaa waxa uu ka hadlay maalinta afka hooyo waa hodan waa qani sidee ku yahay dhabo hilib qood tubaal wado diqdiq dariiq xagaaf marin iyo qaarka gudmo iyo qaar kale oo badan ul qaar bakoorad samay waqay garuun sogsog sarwaan sargad weyla kaawus ya iyo qaar kale oo badan bakoorad iyo matooboyo fiiri dhabo iyo helin iyo qood day waxa halakan mahakan meeshatan ambadatan kobatan cagtatan moogtahay fiiri
gudoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqab oo munaasabada ka hadashay ayaa ka dalbatay dawladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare in sida ugu dhaqsiyaha badan si isxilqaan loogu dhiso xarunta akademiyada af Soomaaliga waxa ayna u mahadcelisay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle dadaalku uu u galay af Soomaaliga dagaalka la isku hoobtay miyaysan wareey haweenka Soomaali halganka joojin mayno jeeraan himiile gaarno halganka joojin mayno jeeraan himiile gaarno hogaami farmaajo because waa madaxweynihii dalka waxaan rabaa marka ujeedada ugu horeysay waa hadaaq iyo tilmaanta iyo hadalka barashadiisa waxaan nahay haween xawa maadsantahay maamo waxay ila tahay in hees laga tumi karo waxay ila tahay marka mudane gudoomiye waxaan ka rabnaa inaad hor kacdo madaxweynaha dawladda Soomaaliyana iyo prime ministerka in isxilqaan lagu dhiso xaruntii afka Soomaaliga waxaan rabnaa in lagu dhiso isxilqaan dhagaxa lagu gudbay iyo cabsida ma jirayso haddii daar waxoon laga dhiso ma waxaan rabnaa marka in xaruntii waa ceeb waa foolxumo waa magaxumo shanta qaaradood ee afka Soomaaliga looga hadlaayo magaaladii la yiri way mudan tahay ee xawdakan iyo heestihiiba nuura xamar waa madhaafaan Ismaaciil Cumar Geelle waxaan leenahay madaxweyne aad ugu mahadsan tahay waad u heelisay laakiin laguma garanaan leeyahay waan il duufnee dib u sax adiga aqalka sare waaya arag rugcada siyaasadeed wadani haduu jiro waadiga taariikhda ka hartay maantay hadii la waayo marka hadii la waayo waxaan rabnaa in loo baneeyo dhulkii waxaan ka dhisanaynaa mudul Maxamed Maxamuud Cadde oo ah rugcada saxaafadeed oo ka qayb galay munaasabada ayaa waxa uu ku dheeraaday ka sheekeynta maalinta afka Soomaaliga ilaa iyo Mauritania ilaa iyo Eritrea afafkii halka ku jiro dhan waa tageen annaga waxaan u jirnaa oo kaliya 27 mayl ilaa iyo 33 mayl afkaan guunka markii halkan ay yimaadeen afafkii kale wali waa soo taagay waxa weeye saaxiibadeen walaalaheen muslimiinta ay Yaman markii halkan yimaadeen ayagii baa la Soomaaliyay af Soomaali bay ku hadlaan marka tagto meesha la yiraahdo cadan ayaad arkaysaa dad af Soomaali ku hadlaya af Carabi ku hadlaya qaar fara badan oo walaalaheen oo jooga way jiraan marka afkan waa af guunaway afkan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo soo xiray munaasabada ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta qiimaha ay leedahay maalintan isagoona ku booriyay dhammaan hay'adaha dawladda inay isticmaalaan afkooda hooyo kana tanaasulaan afafka qalaad haddana wayba qoratay marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay afkiina xoojiya erey kale aan idin sheegaya oo anigana khuseeya anigu nimanka gaalada ajnabiga jooga halka markay iigu yimaadaan xafiiskayga kulama hadlo af Ingiriis turjubaan ayaan idhahaa waxa dhacday Moscow tagay shir markaasaan af Ingiriis ku hadlay ku jeediyay khudbadaydii qolaanu kulanayna aan ku wada hadal kii ila socday oo ahaa senator wuxuu u qaatay wuxuu qabay inaan af Ingiriis ka aqoon wuxuu yiri gudoomiye ilaa af Ingiriis ka waa taqaanay waa yaani waxa weeye de wuxuu arkayay intii aan wada joognayba anigoo af Soomaali uun kula hadlay oo layga turjumaanayo waxaan idhi arrin baan u sameeyay hal arrin baan u sameeyay dalkayga gudihiisa waxaan ogahay dhalinyaradaydu inay shaqo laadahay nimankan soo duulay ee jooga ee nahaystay dhaqaalaha iyagii ku jooga waa inay qortaan dhalinyaro ka turjumaanta sabab aan ugu ogolaadaa ma jirto laakiin kolkaan dalalkooda joogo afkoodan kula hadlaya haddayna afkooda ahay aanan aqoonna af Ingiriiskan kula hadlaya marka waxaan leeyahay on aad u boorinaya heedaha dawladdu waa inay af Soomaali ku shaqeeyaan
oo ayna noqon afafkaa qalaad inaan la quweyn keenna la quweeyo afkeenna af Soomaaliga u heeli ereyada tidhaahdeen waxa weeye waa idinka mahad celinaya hal erey oo codsi ahaa wuxuu ahaa maadaama aan hadda ka mid ahay mas-uuliyiintii sare ee dalka Soomaaliya afka hooyo ha guulaysto ummadda Soomaaliyeed ha guulaysato